Brahmanandram waa jilaa aflaanta Hindiga ee shactaroole caan ku ah shaqadiisa inta badan shaleemooyinka Teluguga. Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay majaajiliistaha ugu weyn ee abid soo mara filimada Teluguga. Brahmanandram oo magaciisu wuxuu yahay Kaniganti Brahmanandram wuxuu carruurnimadiisii ninkaasi uu ku soo qaatay fiqri aad u adag. Waxaana halgan ugu jiray sidii uu ku heli lahaa adeegyada aasaasiga ee nolosha. Brahmanandram waxa uu dhashay 1 Febraayo 1956 waxa uu ku dhashay tuulada lagu magacaabo Mubala oo u dhow degmada Satinibali ee ismaamulka Andhra Pradesh. Ninkani waxa uu haystaa rikoorka Guinness World Record ee ah jilaaga ugu badan ka soo muuqashada shaashadaha caalamka. Waxa uu ka soo muuqday in ka badan 1,000 filim ilaa iyo maanta. waxaa la siiyay shahaado sharafeed ay siisay jaamacadda Acharya Nagarjuna waxaana loo tixgeliyay mid ka mid ah jilaayaasha ugu wanaagsan uguna mushaarka badan inta jilaa ee majaajiliistaha Hindidu leedahay. waxaa lagu sharfay Padma Shri waa abaalmarinta madaniga afraad ee ugu sarreysa ee Hindiya wax ku biirintiisa filimada iyo habcurintiisa Talmoon. dhanka waxbarashadiisana ninkani waxa uu ku qaatay waxbarashadiisii magaalada uu ku dhashay waxa uu qaatay kursooyinka loo yaqaan pre-university courses kadibna markii uu dhameystay waxa uu waxbarashadiisa ka qalin jabiyay college-ka la yiraahdo Dantuluri Narayana Raju College. waxa uu sii watay waxbarashadiisii ilaa uu shahaadada magisterka ama masterka uu ka qaatay cilmiga fanka ee jaamacadda Andhra. dhanka jilista filimada Brahmanandram waxa uu shaqadiisa aflaanta soo bilaabay 1985 isaga oo jilay filimkii Shri Tatafatram. filimkana waxaa director ka ahaa ninka lagu magacaabo Satya Narayana Vijla waxa uu soo baxay sanadkii 1988. Brahmanandram waxa uu aqoonsi ku helay oo caan ku noqday kadib jilistii filimkii Ahna Balenta. intaa wixii ka dambeeyana gadaal muunan eegin oo socdaalkiisa guulaha ee uu ka gaaray filimada ayaa socday ilaa maanta. intii lagu guda jiray duubista filimka Chantabai Brahmanandram waxa uu isbaray ninka lagu magacaabo Chiranjeevi oo ahaa jilaa caan ah. waxa uu soo bandhigay xirfadda uu leeyahay oo aad loola dhacay. sidaa darteed Chiranjeevi ayaa Brahmanandram waxa uu ku casuumay inuu Madras ugu yimaado sidii uu uga caawin lahaa bal inuu fursad uga helo jilida filimada. 3 qof oo ninkaas lagu magacaabo Chiranjeevi ka mid yahay ayaa Brahmanandram abaal kaga haya xirfadiisa jilin. sanadihii xigay waxa uu ka soo muuqday aflaan badan oo Teluguga ah waxaana ka mid ah aflaanta halkan idinkaga muuqata oo soo kala baxay sanadihii 1988 ilaa 1990. Kii 1992 waxa uu markii ugu horeysay Brahmanandram ka ciyaaray doorka hogaamineed ama aktarka. filimkiisii ugu horeeyay oo aktarka noqdo ahaa Hotel Babai taasi qaldan ugu dhawaaqana raali ahaada. wuxuu kaliya jilay ninkani lagu magacaabo Brahmanandram doorka aktarnimada ama hogaaminta filimka kaliya 2 filim oo ka mid yahay midka hadda aan soo sheegnay ahaa Babai Hotel oo 1992 ah iyo Balema Machaka oo ah 1993. ninkan lagu magacaabo Brahmanandram 35 sano oo ku jiray xirfadda jilista. Brahmanandram si adag ay u shaqeeyay maadaama uu ka shaqeyn jiray 3 ilaa 4 saacadood habeen iyo maalin gobolada kala duwan ee wadankaas Hindiya. shaqada xad-dhaafka ayaa waxa la yiri waxa uu dhintay caafimaadkiisa oo aad u saameysay taasoo keentay inuu hoos u dhac yimaado jilista filimada ee uu dardarta ku waday. bishii Janaayo 2019 Brahmanandram waxaa soo wajahay dhibaato xagga neefsashada ah oo aad u daran waxaana la geeyay macadkaas lagu magacaabo Asian Heart Institute ee ku yaala magaalada Mumbai halkaas oo uu ku maray qaliin dhanka wadnaha ah. ninkan waxa uu ku guuleystay abaalmarinta majaajiliistaha ugu wanaagsan isaga oo ku mutaystay bandhigiisa filimkii
ahna Balenta bishii Janaayo 2009 waxa uu helay abaalmarinta Padmashiri sidaan hore u soo sheegnay. Brahmarandaram waxa uu ku guuleystay sidoo kale 6 State Nandi iyo 6 Cinema Awards ah oo abaalmarinooyin wadankaas laga bixiyo Hindiya. Abaalmarinta Filmfare Award South oo ah abaalmarin laga bixiyo dhankaas iyo Koonfurta Hindiya iyo 3 abaalmarinood oo filimada Koonfurta Hindiya ah. 24 June 2010 diiwaanka Guinness World Record oo ah diiwaan lagu diiwaan geliyo waxyaabaha mucjisaadka ah ama la yaabka leh ee hibada qofku goonida u leeyahay ayaa waxa lagu qoray Brahmarandaram jilaaga kaliya ee jilay filimaanta ugu badan inta nool adduunka.